waxaan aad ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan xafladan quruxda badan oo lagu maamuusayo maalinta haweenka adduunka oo ku beegan maanta oo ah 8 Maarso waxaan leenahay haweenka adduunka meel walba ay joogaan hambalyo haweenka Soomaaliyeed hambalyo si gaar ah waxaan hambalyo leeyahay haween weynaha Koonfur Galbeed hambalyo ayaan idin leeyahay waxaan kaloo hambalyo iyo salaan iyo bogaadin idin kaga wadaa marwada madaxweynaha marwada koowaad marwada Zamzam Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo jecleyd xafladan inay nagala qayb qaadato oo aan nasiib u yeelanin ayadana fariintaas idin kaga wadaa inaad hambalyada ka gudoontaan waxaa kaloo naga maqan maanta oo aan si gooni ah ii taabanayo oo aan tabayaa gudoomiyaashii haweenka gobolka iyo degmada gudoomiye Hindiye Isaaq oo xaalad caafimaad u maqan Allah caafiyo gudoomiye Deeran ayadana tacsiya gashay Ilaahay samir iyo iimaan ha siiyo garbaheygay ahaayeen wasaaradda garbaheeday ahaayeen maamooyin aad u firfircoon oo door weyn ka qaadanayay arrimaha bulshada iyo ololeynta haweenkay ahaayeen Ilaahay waxaan uga baryaynaa caafimaad gudoomiye Hindiye si gaar ah ay taabanaysa maqnaanshaheeda intaas kadib mudane gudoomiye ku sima madaxweyne maanta waa maalintii haweenka adduunka si gaar ah ayay noo taabanaysaa annaga ka dawlad Koonfur Galbeed ahaan haweenka qiimaha iyo mustawaha uu ka joogo Ilaahay agtiisa kitaabkaaba lagu sheegay haweenka waa laf dhabarta bulshada waa maxay ahaato dadkii dhalinyaradan hadda hoolka fadhiyo say u badan yihiin waxay dhasheen burburkii kadib dawladii kacaanka ahayd kadib dadkii dhashay u wada badan yihiin waxaa soo koriyay hooyo 90% qaar waxay nasiib u yeesheen ayagoo aaba leh inay aaba la'aan ay soo koraan ayagoo ay yihiin agoon aaba leh qaar waxay nasiib u yeesheen aabayaashooda inaysan soo korinin kuwa waxaa jiro aabayaashooda duruuf darteed ay hooyo u soo korisay maanta waxay ka mid yihiin hogaamiyaasha dalka waxaana soo samatay bixisay hooyo marka hooyo waa jannatu dunya jannadii adduunyada waa la wada sheegay wax alla wixii hooyo ahaana waxaaba nooga warbixiyay dadkii naga horeeyay oo uu uga horeeyo abwaan jaakole waxaan soo joognay xilligii jaahiliyada gabdhaha oo nolosha lagu duugo alxamdulillah maanta haweenkeen way hormareen waxayna u taagan yihiin inay ka shaqeeyaan dawladnimadii horumarkii dalka caafimaadkii nabadeyntii yay mar walba diyaar u yihiin mudane gudoomiye wax yar hadii aan dul maro intii aan joogay wasaaradda sanadkii aan soo dhaafnay sida aan wada ognahay wasaaradda waxa hoos yimaado dadka bulshada ugu nugul hadii ay noqon lahaayeen haweenkii hadii ay noqon lahaayeen caruurtii hadii ay noqon lahaayeen dadkii naafada ahaa intaasoo bulshada ugu nugul waxay hoos yimaadaan wasaaradda haweenka waxaan ku guuleysanay sanadkii aan soo dhaafnay horaantiisa iyo sanadkii aan soo dhaafnay dabayaaqadiisaba waxaan ku guuleysanay inaan sameeyno maadaama dadka bulshada ugu nugul ay yihiin oo ay hoos imaadaan wasaaradda inaan sameeyno 2 sharci sida aad ogtahayba shuruucdaas oo kala ah sharcigii disability-ga iyo sharcigii xadgudubka lagu sameeyay gabdhaha yar yarka ah oo FGM-ka alxamdulillah macna weyn ma sameeynayso sharciga la sameeyay laakiin waxa la rabaa in la daadajiyo shuruucdaas wasaaradda waxaana ka go'an inay daadajiso oo dadka naafada ahna xuquuqdooda ay helaan waxaan sameeynay gudiyo oo 3 gobol ka kooban min 9 xubnood ah 9kaas xubnood 3 kamid ah gudiyadaas oo hogaanka ah waa gabdho oo maxay ahaato degmada Baraawe iyo Baydhabo iyo Xudur sidaas oo kale waxaan leenahay oo wasaaradda ay sameysay gabdho women peace network ka shaqeynayo oo min 15 xubnood ah oo 3 gobol Baydhabo iyo 3 degmo Baydhabo iyo Baraawe iyo Xudur oo ka shaqeynayo nabadeynta
wasaaradda mar walba waxay u taagan tahay sidii haweenka kor loogu qaadi lahaa cod dheer iyo cod gaabanba ay qayb uga noqon lahaayeen siyaasadda ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u heshiisiinta ay qayb uga qaadan lahaayeen maxay ahayd toole horumarinta dalka marka ilaahay idinkiis annagoo kaashanayno oo u hoggaansan kuna shaqaynayno awaamiirtii madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxaan diyaar u nahay si hagar la'aan ah inaan ugu shaqayno ummadaas aan u qareeno geed gaaban iyo geed dheerna aan u fuulno hilmaani hadal kuma jiro waxaan ka tagay wakiilada hay'adaha afwan wakiilada hay'adaha si gaar ah u salaamaya marka mudane gudoomiye maanta waa maalin weyn runtii waa maalin taariikhi ah waa maalintii loo asteeyay haweenka adduunka waxaan rabaa marka hore inaan u duceyno maadaama ay bil Ramadaan tahay inaan u duceyno hooyooyinkeena kuwii nool ilaahay inuu barakeeyo oo caafimaad iyo cimri dheer uu siiyo kuwa dhintayna ilaahay jannatul firdaws a'la ilaahay inuu ka waraabiyo aan u duceyno hooyooyinkeena ilaahayna waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa annagoo bad qabna inuu ilaahay isugu kaayo keeno xafladan oo kale insha Allah biidnillaahi kariim xilli duhuraha waa maxay ahaato waxa iga dambeeyo kusimihii madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan intii xafladda ka soo qayb gashay oo naga soo ajiibtay casuumadan waa idinkaga mahadcelinayaa si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo hay'adaha ku xusan boorkan oo naga taageeray inay xafladan qabsoonto maanta si gaar ah aan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadcelinayaa howlwadeenada wasaaradda haweenka ay ugu horeyso agaasimaha guud agaasimaha waaxda qorsheynta iyo siyaasadda iyo dhammaan tiimka wasaaradda haweenka oo si hagar la'aan ah xafladan u soo qaban qaabiyay oo la'aantooda waxba aan ii qabsoomeen madaalayaasha waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaan ka soo qayb galayaasha iyo bahda saxaafadda dhammaan waa idin mahadcelinayaa